Asalaamu calaykum. Tartankii tiknoolajiyadda iyo hawada sare. Qarnigii 20aad waxay adduunyadu aad ugu horumartay sidii wax looga ogaan lahaa cilmiga hawada sare ee dhulka. Hawada sare ee dhulka waa markii dhulka dhanka kore looga baxo. Maanta waxaan si kooban uga hadli doonaa tartankii xoogganaa ee wax looga ogaanayay hawada sare ee dhulka. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Markii uu idlaaday dagaalkii labaad ee adduunyada dhexbartamihii qarnigii 20aad waxaa dhacay khilaaf xooggan oo u dhexeeya labadii quwadood ee Soviet iyo NATO oo ay kala hogaaminayeen Mareykanka iyo Ruushka kaasoo sababay dagaalkii qaboobaa. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay dagaalkii qaboobaa marar badan laakiin aad u malaynayso in dagaalkaas loo isticmaalay saas nool. Arrinku sidaas waa uu ka duwan yahay. Wuxuu ahaa dagaal tartan dhan walba ah oo ay tartameen labadii quwadood ee aan soo sheegnay ee Soviet iyo NATO. dhan walbana waxa uu isku dayay inuu muujiyo inuu ka sareeyo dhanka kale iyagoo aad ugu mashquulay horumarinta awoodda ciidan, dhaqaale iyo siyaasadda. 1950kii waxaa qarxay tartan cusub oo u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka kaasoo loogu magac daray tartankii hawada sare. Oktoobar 1957 Raashiya ayaa hawada sare u dirtay Sputnik oo ah dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee bini'aadamku sameeyo kaas oo hawada loo diro. waxa ayna u direen hawada sare ee dhulka taas oo aan laga soo dhaweynin Mareykanka carana gelisay dadka Mareykanka maadaama uu tartan kala dhaxeeyay. A mighty roar. Our rocket vibrates. White hot flame gushes downward, and the great beast lifts slowly from the earth. We are about to create a new planet that we will call Sputnik. laakiin sanadkii 1958 Mareykanka oo ka jawaabayay ayaa isna design gareeyay dayax gacmeedkiisii la oran jiray Explorer 1 kaas oo ay design gareeyeen ciidamada Mareykanka. Isla sanadkaas madaxweynihii xilligaas ee Dwight Eisenhower ayaa saxiixay in la abuuro hay'ad ka shaqeysa hawada sare ee lagu magacaabo NASA taasoo shaqadeedu tahay in cilmi baaris ku sameyso cilmiga hawada sare. waxaa aad u kululaaday dagaalkii hawada sare. Soviyetka ayaa tallaabo kala qaaday oo ugu magac daray Luna 2 kaas oo ahaa in baaritaano lagu sameeyo dayaxa. Abriil 1961 ciidamada Soviet ee Yuri Gagarin ayaa ku soo wareegay wareegga dhulka oo dhan asigoo isticmaalaya Vostok 1 oo ay sameeyeen Sovietka. waxaa cadaadis dhan walba ah soo koray Mareykanka maadaama Sovietka guulo waaweyn gaarayo waxaana Mareykanka ku qaatay in iyana markooda ku soo wareegaan dhulka sanad kadib xilligii Sovietka diray Vostok 1. isla sanadkaas 1962 waxaa madaxweynihii Mareykanka ee John Kennedy ku dhawaaqay in Ameerikaanku qorsheynayaan in dayax korkiisa ku dagaan iyo in markii ugu horeysay bini'aadamku la dulgeeyo dayaxa dushiisa. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best. sanadihii u dhaxeeyay 1961 ilaa 1964 waxaa budgetka NASA kor loo qaaday 50%. waxa ayna shaqaaleysiiyeen 34,000 oo shaqaale ah si guul looga gaaro projectiga in lagu dago dayaxa dushiisa markii ugu horeysay. July 16 1969 cirbixinadii Mareykanka ee Neil Armstrong, Edwin Aldrin iyo Michael Collins waxay bilaabeen missionkoodii Apollo 11 waxa ayna si guul ah ugu dul degteen dayaxa. July 20 Neil Armstrong waxa uu noqday qoftii ugu horeysay ee ku dul socda dayaxa taas oo dunida oo dhan ka yaabisay ama kaagna ku noqotay. subaxan Mareykanka aad ayaa looga faraxsanaa maadaama guul weyn soo hoyatay. kadib guushaas Mareykanka waxa uu si rasmi ah u xaqiijiyay in uu ku guuleystay tartankii hawada sare. Sovietka ayaa isna isku dayay 4 isku day uu dayaxa dad ku geyn lahaa intii u dhaxeysay sanadadii 1969
ilaa 1972 laakiin uu ku guuldaraystay waxaana inta badan qalabkii la diray caqabad ku noqotay uuna la kulmay qaraxyo ay sababtay oksijiinka hawada sare. intaas kumay ekayn tartankii hawada sare laakiin waxaa yaraaday kulaylka tartankaas waxaana ku soo biiray wadamo badan waxaana ka mid ah Canada, Britain iyo France. Afrika iyadu waxay xilli dambe ku soo biirtay in cilmi baaris lagu sameeyo hawada sare waxaana ilaa hadda satellite hawada u diray 7 wadan oo Afrikaan ah waxaana ka mid ah Nigeria, Algeria, South Africa, Masar, Morocco, Angola iyo Ghana. waxaana wadar ahaan Afrikaanku leeyahay 27 satellite waxaana lagu dari karaa Kenya oo iyana sanadkan gudihiisa u diraysa kii 28aad ee Afrika. We are very pleased here at the University of Nairobi to announce that the first Kenyan satellite built by the University of Nairobi and our partners will be deployed into space this coming Friday, the 11th of May, 2018. sidoo kale waxaan sanadka dambe qorshaha ku darsaday Ethiopia. faa'iidada satellite-ku waa in wadan kasta uu maamulo isgaarsiinta uuna kor kala socdo dhaqdhaqaaqa ka soconaya gudihiisa.